wanaagsan daawadayaal halkan waa telefishinka City ee Muqdisho waxaana Cumar Yuusuf Maxamed qodobada aad daawan doontaan waxa ugu waaweyn dawladda Soomaaliya oo shaacisay natiijada sahanka xogta nafaqada Soomaaliya madaxweynaha Koonfur Galbeed oo kormeeray wasaaradda maaliyadda dawlad goboleedkaasi siyahayaha wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya oo Muqdisho tababar uga furay qaar kamid ah wariyaasha ka howlgala warbaahinta qaranka hogaamiyaha xisbiga wadajir oo maanta lagu soo dhabeeyay magaalada Dhuusamareeb arrimo dhowr ahna ka hadlay maamulka deegaanka Janaale oo sheegay in xaalad caafimaad ay ka jirto gudaha degmada iyo barnaamijyo maalintii labaad ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho qodobadaas iyo wixii nagu soo kordhay ayaa daawan doontaan saaxiibayaal ku soo dhawaada warkii oo intaasi ka faahfaahsan isku soo noqod wanaagsan daawadayaal sida hordhaca warkaba aad ku daawateen wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shaacisay sahanka xogta natiijada nafaqada guud ahaan Soomaaliya wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Fawziya Abikar Nuur ayaa ka warbixisay sahan lagu sameeyay 2400 oo qoys wasaaradda caafimaadka ee daryeelka bulshada ee dawladda federaalka Soomaaliya iyadoo la kaashanaysa hay'adaha ay wada shaqeeyaan Soomaaliya kala shaqeeya dhanka caafimaadka gaar ahaan UNICEF Soomaaliya waxa sharaf weyn u ah inay soo saarto maanta natiijadii sahanka xogta nafaqada Soomaaliyeed oo dhameystiran qalad lagu yiraahdo Somali Micronutrient Survey 2019 results waxa xusid mudan in soo gabagabeynta iyo ka guulgaarista qabashada sahanka nafaqada ay tahay guul u soo hooyatay dhammaan bahda caafimaadka sahankan waxay ujeedadiisu ahayd inuu bixiyo sawir guud oo ku saabsan heerka nafaqada haweenka iyo caruurta da'doodu ka yar tahay 5 sano waxaana sahankan lagu sameeyay 2400 qoys oo ku nool guud ahaan Soomaaliya oo dhan Somaliland, Puntland, Jubbaland, Galmudug, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir iyo sidoo kale dadka barakacayaasha ah si loo ogaado heerkooda nafaqada ururinta xogta sahanka nafaqada lagu ururiyay waxa kamid ah xogta qoyska household data xogta cabirka koritaanka jirka caruurta child growth monitoring iyo tilmaamayaal badan oo ay kamid yihiin dhiigga kaadida iyo saamiyada biyaha iyo cusbada natiijada sahanka ee nafaqada ka soo baxday waxa lagu ogaaday in ka badan 40% haween iyo caruur ay qabaan dhiig yari anemia 34% caruur ayaa qaba vitamin A yaraan oo ku yar vitamin A deficiency 11% haween ah ayaa qaba vitamin A yaraan ayadoo laga tixraacay natiijooyinka ka soo baxay sahanka nafaqada ee Soomaaliya 2019 wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada waxay horseed u noqon doontaa dejinta siyaasadda iyo istiraatiijiyada lagu yareyn doono heerka nafaqa yarida malnutrition sidoo kalena waxay kor u qaadi doontaa heerka nafaqada haweenka iyo caruurta 5 sano ka yar iyo guud ahaanba dadweynaha Soomaaliyeed ugu dambeyntii wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada waxay ku boorinaysaa dhammaan hay'adaha dawladda hay'adaha UN-ta kuwa caalamiga ah ururada maxalliga ah ganacsatada shirkadaha gaar loo leeyahay iyo kuwa cilmi baaristaba inay u isticmaalaan natiijada sahankan nafaqada Soomaaliyeed 2019 dhammaan barnaamijyadooda horumarinta nafaqada waa siyahayaha wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicaziz Xasan Maxamed Laftagareen waxa uu kormeer ku sameeyay wasaaradda maaliyadda dawlad goboleedkaasi isagoona xubnihii halkaasi uu kula kulmay ay kamid ahaayeen howlwadeennada wasaaradda Suleeqa Siman Cabdi ayaa warbixintan eegaysa
madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftigareen ayaa kormeer shaqo ku tagay wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed mid ka mid ah xubnaha wasaaradda ayaa ka warramay ujeedka kormeerka iyo waxyaabihii uu kala hadlay geek oo taariikhda 25 bilasiidad 2020 waliba xafiiska wasaaradda maaliyadda anay booqday madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya oo geek una anjeedini waxqabadka wasaaradda maaliyadda litibilood la dhaafi run ahaantii madaxweynaha libilood kasta wasaaradda maaliyadda waliba meelaray ku faday report warbixin oo ka saabsan waxyaabaha qabsoomay iyo caqabadaha jara sidii meelaray ku gudub lahaay iyo qaabka loo gobada lahaay madaxweynaha waliba anjeedini teamka wasaaradda maaliyadda oo la taliyalka iyo agaasimiyalka iyo isku kaaladayaan report oo litibilood la dhaafi la diyaari maadaama sisan ogtiin wadanka guud ahaan adduunka ku dhii cudurkan oo coronavirus saameeyay taasoo meelaray saameyn weyn ku yeelatay dhaqaalihii oo inshaagada adduunka saameyn ku yeelatay guud ahaan wadanka Soomaaliya oo cudurkaas coronavirus u siina saameyntiis ku yeelatay dhinaca dhaqaalaha eedan weynayti ya meelaray koonfur galbeed iyana waliba saameeytay miisaaniyad uu dejiyay sanadkii oo ka tala galaanay inuu meelaray dakhliga oo gudaha ku harooday in meelaray koronqaan oo markii hore ka tala galnay ya waliba saameyn ku yeelatay cudurkaas oo coronavirus-ka marka waliba fiiriyaanay oo analysis ka soo biyaanay isbedelada meelaray oo 8 bilood oo coronavirus jarna iyo meelaray 8 bilood oo la dhaafi oo ilaa June oo cudurkan jari isbedelka meelaray oo trend analysis wala soo biyaanay waxyaaba isbedeli gaabka oo meelaray oo budgetka ka kooy qaabka oo meelaray budgetka support ama meelaray la kordhiyo kor iyo caqabadaha oo meelaray jaro isla iftiimini madaxweynaha run ahaantii oo eed wasaaradda ku warqabo markasta meelaray shaqooyinka oo wasaaradda qobadaas iyo talooyin shay iyo meelaray naftirshii meelaray qaabka oo dakhliga korna qaada fadhi eed insaaro meelaray muhiimad gaar ah insiyow yaa u siin meelaray waliba nibiiri talooyin shay nibiiri waliba rajeeyeen meelaray maadaama saameyn weelada cudurkan oo coronavirus saameyn weelada haddana meelaray inuu ku gudubno ila kale oo meelaray meeliyo saameynta ku weelada me dhinac kale oo source oo dakhli inuu abuurno waxyaabo badan meelaray ya reportkas iyo ya warbixintaas yaa ka jeedini marka waliba rajeeyeen insha Allah ani litimbulo hata soota casharada inuu ku baranay bilowga la dhaafi uno fiirana ani litimbulo hata soota isbedel iyo meelaray wax ka bedelid badan oo ka sameeyo doona dhaqaalaha ayaa rajeeyana dilaayar guud ahaan meelaray waliba ma nagay madaxweynaha iyo teamkii oo meelaray oo wasaaradda maaliyadda agaasimiyalkii iyo la taliyalkii oo ku shaqeeyay arintan ciidan ka maadsinin Suleeqa Siman Cabdi raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho aad baad u mahadsantahay Suleeqo si hayaha wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye waxa uu maanta Muqdisho tababar ugu furay howlwadeennada warbaahinta qaranka si hayaha wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo tababar u furay agaasimiyaasha iyo shaqaalaha warbaahinta qaranka ayaa waxa uu sheegay in warbaahinta qaranka xilligan wariyaasheeda ay ku shaqeynayaan duruufo adag kuwaasi uu sheegay in xitaa meelaha qaar ay doonayaan in barnaamijyo ay ka doonaan aysan u haysanin waxbajada isaga oo intaasi sii raaciyay in sanado ka hor ay wariyaasha ku shaqeynayeen mushahar la'aan isaga oo sheegay in hadda ay qaataan mushaharkooda shaqaalaha dawladda maybe waxay la mid yihiin ciidamada qaranka oo kale ayay la mid yihiin shaqaalaha wasaaradda warfaafinta shaqaalaha kale laga yaabee inay saacado shaqeeyaan oo rawaxaan laakiin shaqaalaha wasaaradda warfaafinta 24 saac ayay shaqeeyaan shaqo adag qabtaan duruufo runtii adag ay ku shaqeeyaan khibradda ay agaasimayaasha ama dadka program soo saarayaalku ay heleen ama tababarada markay meelo qaarkood u tagaan waxay u tagaan barnaamij soo saarayaasha iyagoo kala halkii barnaamijka la doonayo inuu maaragtay waxtar fiican noqdo inay soo saaraan dad aan ka yarayn 10 qof oo qaarkood xagga technicalka ka caawinayaan qaarkood xagga
isku dubaridka xogta ka caawinayaan qaarkood xagga editika ka caawinayaan qaarkoodna xagga helista fikir bulshada wax u tar u ah ay ka caawinayaan halka laga yaabo barnaamij soo saarayaasha halkan fadhiya qaarkood in aanay taageeradaas oo kale haysan laga yaabo barnaamijyada waaweyn TV-yada kale adduunka laga soo saaro budget runtii aad u badan inay leeyihiin laakiin dadkani ay ku shaqeeyaan zero budget waxaa transporti aanay u haysan meelaha ay doonayaan wararka inay ka raadiyaan laakiin waa dariiq dalkeenu ku socdo maalmo ka hor ama sanooyin ka hor mushaar xataa ma yaqaanan jirin iyagoo saas oo kale u shaqeynaya marka maanta inay mushaar heleen shaqadii ay hayeen oo ay hayaan berina waxaa imaanaysa inay la mid noqdaan barnaamij soo saarayaasha kale caalamka oo taageerada ay helaan xag qalab iyo xag taakulayn iyo xag farsamo ay barnaamij ku soo saaraan inay helaan laakiin waxaan aad u ammaanayaa duruufta ku shaqaysaan iyo tayada barnaamijyada soo saartaan waxaan rajaynaynaa seminaarkan inuu wax badan oo kale idiin faa'iideyn doono sida barnaamij tayo leh oo bulshada waxtar u ah loo abaabulo inaad ka faa'iidaystaan 10 casho maalin kasta hal saac uu socon doono waa inoo furan yahay aad ba u mahadsantahay waa sihayaha wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxaa maanta uu u duulay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug halkaas ayaa waxaa si weyn ugu soo dhaweeyay bulshada ku dhaqan gudaha magaalada Dhuusamareeb iyo maamulka degmada Cabdiraxmaan Saciid Timacade ayaa eegaya warbixintan waxaa maanta magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug soo dhaweyn diiran loogu sameeyay hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxaana soo dhaweynta kadib hogaamiyaha xisbiga wadajir loo soo gudbiyay gudaha magaalada gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb ahna duqa magaalada caasimadda ah ee Dhuusamareeb Cabdiraxmaan Geedo Qorow oo kamid ahaa mas'uuliyiintii soo dhaweysay Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in muwaadin walba oo reer Galmudug ah halkan looga yeeray Galmudugna ay hore u dhaqaaqday loona baahan yahay garab istaagooda gudoomiye soo dhawaada adiga iyo xisbiga aad hogaaminaysaan runtii aad iyo aad aan ku faraxsanahay deegaanku waa deegaankiini dalku waa dalkiini qof kasta oo reer Galmudug waa loo yeeray waxa la idinkaga baahan yahay cilmigiina iyo aqli iyo calaf iyo cudud waxaad haysaan inaad Galmudug ku kordhisaan Galmudug meel fiican maanta maraysaa horeeyaa loo dhaqaaqay adinkana maaragtay runtii waa nala joogteen haddana waa soo daahdeen waxaan rabnaa insha Allah meesha sanda almarsiinan aan ka sii wada anba qaadno soo dhawaada waa mahadsantihiin gudoomiyaha xisbiga wadajir mudane Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa isna sheegay in soo dhaweynta maanta loo sameeyay ay ahayd mid uu filayay shacabka caasimadda Galmudugna uu ugu mahadcelinayo waxa kale uu sheegay in maalmaha soo aadan oo halkan sii joogi doono maamulka iyo siyaasiyiinta kale ee deegaanka iyo madaxweynaha iyo shacabka Galmudug intaba sidii sharafta iyo milgaha lahayd ay noo soo dhaweeyeen maanta oo aan ka filaynay magaalada Dhuusamareebna ku soo dhaweeyay waa soo dhaweyn aan filashadeeda qabnay runtii aanan ka filayn dadka deegaanka ah aad iyo aad ayaan uga mahadcelinaynaa in aan soo xoojino booqashada halkan iyadoo meeshan shirar muhiim ah oo isdaba joog ah oo Dhuusamareeb 1 iyo 2 iyo 3 ay ka dhaceen oo masiirka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed ayaheeda dan u ah looga tashanayay inaan maanta soo gaarin aad iyo aad ay farxad noogu tahay maalmahanna waan sii joogi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo arki doonaa madaxda iyo mas'uuliyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshadaba kulamo maaragtay la yeelan doono aad iyo aad ayaan runtii mar kale uga mahadcelinaynaa soo dhaweyntaas qiimaha leh sharafta leh ee maamuuska sare leh ee aan loo kala harin shacab iyo mas'uuliyiin iyo madax intaba waxaan rajaynaynaa insha Allah in aan maalmaha aan joogno aan kala bogo doono socodkeennana uu ku wajahan yahay deegaanadan Galmudug ilaa iyo Puntland intaba mar kale waxaan leenahay waa mahadsantihiin Cabdiraxmaan Xaaji Saciid Timacade muuqaali maqalbaahiyaha City magaalada Muqdisho aad baad u mahadsantahay Cabdiraxmaan barnaamijyo ayaa maalintii labaad waxaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ka dhigay qaar kamid ah darawallada kaxaysa gaadiidka xamuulka qaada Cabdicasiis Haykal ayaa warbixintan soo koobaya darawallada kaxeeya gaadiidka waaweyn ee xamuulka ayaa maalintii labaad magaalada Muqdisho ka dhigaya barnaamijyo ay kaga cawanayaan gooyin iyo dhibaatooyin kale
qaar ka mid ah banaanbaxayaasha warbaahinta la hadlay ayaa sidan yiri urur kale qaas mucaarado mayno qof gurgeer jirta mucaarado mayno waxaan doonaynaa gaadiidkayna wadadan la mari lahayn oon marsiin lahayn oon guryaheena ugu hoyaadi lahayn dawladda Soomaaliya inayna siiso oo ina tixgelido wayna canshuurta uma diidno 3 bilood ka bacdi $92 laga rabaa laysinkayga lacag laga rabaa lafayga lacag laga rabaa wadada wixii lagu dhisay ana laga rabaa wiilasha wadada joogo waxay shaaku aan mushaar u qaadan ana laga rabaa waxaan doonayaa inaan helo wada aan ku shaqeeyo habeen iyo maalin anoo ah gaadiidka waaweyn xamuulka oo dekada magaalada Muqdisho aan doonaynaa 5 saacadood baawrka dekad 500 baawra loo deeyay waxaan ka bilaabaa daljirka feel asgari waa ilif qaraaca aniga aan kula hadlaayo baawr xamuulaan wata waa faanta umaleeya hadda koran oo wata xabad leegu dhuftay calooshayda waa qalan tahay dawladdan uma qabsan oo dhiigayga ana calooshayda ku naqsaday hadda dawladda waxaan ka codsanaynaa inay dadkaana naga qabtaan isfafaalo aan ku shaqeey karno iyo wada dariiq aan marno oo baawrtan amniga anaga wadan ka shaqeynayna waa faanta umaleena qof aan haysana male intaasiga waa taladeeda aniga marka containerka soo qaado bakaara tago soo laabto meeshaas lagu celina 100 baawra meeshaan isugu maanayso magaalada afarteeda gees ku soo dejis waxaa laga yaabaa inaan 3 habeen 4 habeen taagnaano kale containerka faaruq markaan celinayo hadaan 4 habeen taagnaado oo markaan containerka doonayo aan 4 habeen taagnaado hadana containerka waa dhacay lacag laga rabaa leeyahay markaan containerka dekada geeyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ama dawladda Soomaaliya cid kasta wax ka qaban karta arintayna waxaan ka codsanaynaa wada aan marna inaan helno dhanka kale gudoomiyaha degmada Kaaran Abshir Kaaran oo la hadlay banaanbaxayaasha ayaa u sheegay inay tixgeliyaan cabashooda balse ay degnaan muujiyaan waxaan rabnaa mar kastaba wixii ka dhaca in xal lagu dhameeyo gaadiidleyda cabashada ay soo gudisay waa tixgelinaynaa laakiin waxaan rabnaa in deganaan la muujiyo ee tuuriyada la dhaafo oo aan baloomika iyo problem kale aan la abuurin hadda waxaan joognaa wada xiran wadada xiran sababay u xiran tahay amaray ku xiran tahay ma iskama xirno marka cidii naga sareyso amarkaas bixisay iyo xalkii ay ugu tala gashay waxaan ka rabnaa inay cadayso soo sheegto insha Allah waan soo sheegi doontaa annaguna reportkaas waa la wadaagaynaa laakiin waxaan rabaa bulsho ahaan in la isdejiyo waxaan rabaa waxa aad wadada oo xiran meel oo furan hadda ma jirto gees walba waa ka xiran yahay in dadka wadooyinka loo furo baawurta baakina kale loo raadiyo ciladaana gudigaas oo soo saareysaan iyo annaga ku bixayno riboodan idin keeni doonaa insha Allah cabashada ugu weyn maxay tahay cabashada ugu weyn waxa waaye gaadiidkii oo halkan isku kor yimiday iyo wadada 48 saac ka badan xiran oo aan gaadiidka la day waayay cabashada ugu badan kulay waxa kale ayaga sheegi doono ka amanaya iskooska marnada iskooska kale marka maamulkiina degmada Kaaran arinkaas bagalaad iskooska marina kaliya maahane waa ilaa iyo taleex ilaa iskooska marina meesha gaadiidka weyn laga deeyo kulay amara baxay madaxda sare ee bixisay maalintii labaad oo xiriir ayay daraalwadaan Muqdisho ka dhigayaan banaanbaxsi wax lagu qabto dhibaatada ay sheegayaan inay haysato Cabdilcasiis Cabdiraxmaan Xasan Cabdilcasiis Heykal maqal bahiya city magaalada Muqdisho aad baad u maasantahay Cabdilcasiis maamulka deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose waxa uu shaaciyay in xaalad caafimaad ay ka jirto gudaha deegaanka isagoona baaq u diray hay'adaha ay khusayso arintan gudoomiyaha degmada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose Cabdiraxmaan Al-Cadaala ayaa sheegay in degmada Janaale ay ka jirto xaalad caafimaad oo aan la qiyaasi karin waxa uu shaaciyay in dhammaan hay'adaha ay khusayso arintaasi ay soo gaaraan gudaha degmada oo uu sheegay in caruurtii ay u dhimanayaan nafaqa darro halka dumarkiina sidaas oo kale ay dhiigbax ugu dhimanayaan haddii aan lala soo gaarin gargaar caafimaad sida uu hadalka u dhigay gudoomiyaha dadku mar walba daawo soo doonanayo caafimaad ku soo doonanayo MCH-ka maalintii ilaa 200 ilaa 150 qof ay imaato saas darteedna waxa waa daawiyar waa jirta daawooyinkii dadka ay rabeen xataa si sax ma u helayaan waa dareemi kartaa duruufaha adag ay ku shaqeynayaan shaqaalaha waxaan leeyahay aad u mahadsantihiin mar walbana waxaad u shaqaysiin ummadda waxyaabo waxaa jiro oo dhaco mar walbo naagaha uurka leh waa intaan janaal joogtay shanaad way umul raacday dhiig la'aan darteeda haddaysan jirin bangi dhiiga hadduusan jirin meel ay dadku ay dhiig iskaga baaraan haddaysan jirin meel lagu nafaqeeyo dadku waxay u dhimanayaan nafaqa daro iyo macluul ay u dhimanayaan waxaan leenahay marka wasaaradda caafimaadka in reportkan gaarsiiso janaal waxay ku jirtaa xaalad degdeg ah in laga soo gaaro wax walba oo kaabi kara caafimaadka ismaaciil adaa u maqan ilaahay subxaanahu wa tacaala aduu kula xisaabtamaya maadaama aad tahay isku duwi wasaaradda caafimaadka hadda joogo Shabeellada Hoose
inaad baahiyaha lagu sheegay aad wax ka qaban waxaan rabnaa Ismaaciil inaad meel walba garaacdo baahiyaha aad wax ka qabato aad u sheegto dadka ka sareeyo inay janaale xaalad degdeg ay ku jirto inay janaale ay xaalad adag ku jirto caruurta waxay u dhimanayaan nafaqo daro naagii ay waxa u dhimanayaan dhiigbax dhiig la'aan ay u dhimanayaan dhiigbax ay u dhimanayaan waxaan rabnaa marka in xaaladaas degdega ah nagala soo gaarsiiyo waa gudoomiyaha deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose gudaana waa inaga intaas warka CSTV magaalada caasimadda ee Muqdisho ayuu si toos ah kaga imaanayay soo saaraha iyo soo jeediyaha warkan waa anigoo ah Cumar Yuusuf Maxamed saaxiibkay daacad dhanka farsamada iyo kaamirada ayuu iga hagayay intaan ku kulmi doono warkan kiisa xiga isma dhaafno